wajiyadooda waxaa ka muuqatay farxad xad-dhaaf ahi markii ay arkeen duqii hore ee caasimadda mudane taabid kaasoo ahaa qofkii rajadii ay ka qabeen noloshooda dib u soo celiyay. taabid oo shalay si weyn loogu soo dhaweeyay Istanbul ayaa maanta waxa uu mid u tagay hoyga ay ka degan yihiin magaalada tan Istanbul. shakhsiyaadkii maamulkiisa ay caafimaad ahaan ay ugu soo direen Istanbul kuwaasoo hadda aad u caafimaad qaba. waxa ugu horeen uu gaaray hoyga ay degan tahay Faa'izo Sheekh Maxamed iyo waalidkeeda iyagoona aad u soo dhaweeyay gacan qaaday waxaana loo jeeday Faa'izo oo wajigeeda farxad xad dhaaf ah ay ka muuqato oo gacan qaadaysa taabid iyadoona si weyn ugu duceysay. intaasi kadib taabid Cabdi Maxamed duqii hore ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu gaaray hoyga hooyo Muxubbo Maxamuud Cali oo iyadu ka saqiiray wiilkeeda Maxamed Mustafa kadib markii uu qaadan waayay oksijiinka qaliinka kadib. taabid ayaa uga tacsiyadeeyay hooyo Muxubbo geerida wiilkeeda. maxamed cumar ayaa sidoo kale waxa uu ahaa wiil yar oo muddo 7 sano xanuun wadnaha hila ildarna waxa uu fursad caafimaad oo dibadda uu helay markii la magacaabay taabida isagoona helay daaweyn caafimaad oo Turkiga. maxamed oo caafimaad qaba ayuu maanta mar kale waxa uu la kulmay qofkii rajadiisa dib u soo celiyay. maxamed yare ayaa waxa loo jeeday isagoo isku duubay gudoomiye taabida. taabid ayaa sidoo kalena jilbaha dhulka dhigtay iskuna duubay maxamed yare oo aad u faraxsanaa. intuu booqashada uu sameynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho ayaa waxa uu isbitaal ugu tagay wiil arday ah oo muddo 3 sano isbitaal ku jiray oo madaxa ka xanuunsanaa. duqii hore ayaa caafimaad alle uga baryay isagoona baaq u diray shacabka Soomaaliyeed in ay soo garab istaagaan ardaygani. Sheekh Maxamed gudoomiyaha kumeel gaarka ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga ayaa TV-ga Universal hadlay. والله يا مارتي ماشان مارتي أنا كسر دويني قدومي ثابت مركا إن شاء الله تعالى ما أنتنا قدوميه وصاب وغضي ضدكي مارتي ماشان هذا عافمان أنت الله كياني فإذا كمت هي محمد يويل كيرا مركا كل وين ما شاء الله يعني حالة والعافمات هذه وناكسنت هاي. taabid Cabdi Maxamed oo ka hadlayay booqashadiisa uu sameeyay maanta ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. waxaan alxamdulillaah ilaahay mahadiisa oo maalintii shalay aan nabad imid magaalada Istanbul waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Istanbul iyo saaxiibada kale ee sida wanaagsan oo sharafta leh noogu soo dhaweeyay. waxaan leeyahay mahadani ka gaadha dhamaantiina maanta alxamdulillaah ilaahay wuxuu inoo waafajiyay inaan soo booqano dadkii walaalahan ahaa oo saaxiibadeen ahaa ee runtii xaaladaha caafimaad ama dareel caafimaad dalka dibadiisa loogu soo diray ayaan maanta soo booqanay oo ay ku jirto walaashay Faa'izo Sheekh Maxamed oo runtii maanta aan dareen gooni oo farxad ay aniga shakhsiyan igilisay oo alxamdulillah xaaladda caafimaad oo ay aad u soo hagaagtay. waxaan ilaahay ka baryaa caafimaad taam inuu siiyo Faa'izo. runtii waxay ahayd wax oo aad loogu farxo runtii. waxaan rajaynayaa insha Allah taala in si tartiib maalinta ka dambayso oo caafimaadka soo hagaago wax degdegan insha Allah aan la gelin oo ilaahay idinkiisa insha Allah iyadoo nabad qabto oo caafimaadka taam dalkan dib ugu laabato. annagan insha Allah taala si gaar ah ayaan ula socon doonaa xaaladda caafimaad oo ilaahay idinkiisa loo xaqiijiyo in ilaa ugu dambeyn dareelkii caafimaad ee u baahneed inay hesho. waxaan sidoo kale maanta ayadana u tagay oo soo booqday gabadhii walaashay Muxubba oo wiilkeedii Maxamed Mustafa Maxamed Yare aan sakhiiray dhowr maalin ka hor isagoo qalin ku jira oo wadnaha qalin looga sameeynayo sakhiir aqar Allah uga dhigo. alxamdulillah dadaal waa la sameeyay wajaclaan lahayn inuu noolaado oo lagu guuleysto laakiin haddana amarkii Ilaahay ayaa intaas qadarta intaas ahayd laakiin sakhiir aqar Allah uga dhigo. waxaan sidoo kale maanta ayadan runtii farxad lahayd inaan soo arko maxamed cumar maxamed yare oo qofkii ugu horeeyay la soo diray ahaa oo qalin wadnaha looga sameeyay oo alxamdulillah caafimaadkiisa aad u fiicnaa runtii dheelayay oo noo sheekay cabar asagana hadda waxa ku socota kormeer caafimaad insha Allah waxaan rajaynayaa caafimaad taam inuu helo. marka dhamaantood waxaan leeyahay runtii waa dadaal badan oo la soo qabtay waana insha Allah waana sii wadi doonaa wixii niyad wanaag iyo naxariista ahayd. sidoo kale wiil walaalkeen ahaa oo arday ahaa oo asagana istaal ku jira maanta soo booqanay oo halkan waxbarasho u imaaday. xaaladiisa runtii u baahan in ummadda Soomaaliyeed istaagto ee garab istaagto oo dadka dhan aan si gaar ah si guud ugu baaqayo. jaaliyada kale insha Allah taala waqtiga munaasabka saxda ka warbixin doonta
marka in wada isgarab istaagaan oo niyad wanaag naxariis la sii wada ayaan ku baaqayaa. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مقالة اسطنبول.